inantii yareeda guriga naloo keenay ee waxaan ku maxaa la yiraahdaa markii hore inan magaalaha iska noqotay waxaan ku wari markii daba noola qabsatay ee xoolaha iga eegays ee wax kasta ii qabanaysa ee digada iga xaadhisay ii soo dhaaminaysa ayaa waxaan ku leeyahay xal shalay inta weerarna lagu soo qaaday saaran waxaan la geeyay aanan nahay cadaradan ku soo qabtaan oo cadaradii ragana ma haysaa kisinka yaasiin hadda raga Cabdiqani ma caadi hooyo dad u qaadaysan baabaha saasan bariga hore ugu soo qaadi jireen iskuul kii dee hortoodayga ahaa halkaan la diidayay markuu bidhaanti laba maxaaba loo soo diray guutooyin baa soo galay waxaan ku saddex askari iyo labadii gaari markuu arkay sidii yarkii loola booday iyo ciidamada saa isu rogaya tanay alla libaaxa yimey maroodigii cagta weynaa maxay heeday walaal maxay briyahan problem family bana haystay tada yar baa lala tagay miyuun la tagay inaan baa uga taagayna isjeclaadeen inantii aakhirkii aadadu ka dabo tahay ceeq wadiga garanayade maxay heeday waan soo qabanay yadii baan keenay ninkii jeel buu ku riday inantii yareed taladeedba tala ma oo cuntaaf saari mayso oo wax ka ku sameeyo farxi mayso oo nafaxaadi mayso aan doonayo in kaga dhigto taanaga wuxuu lagu yiri gabadh baa ka haysta haddii ilaahay laga helo gabadhiina waan la tagay haddaan la tagay dee odayaashii baa tiira taga dee saas loogu warrabo ciidan ahaan buu idin soo kaxay ha ciidan ahaan oo reer baa laga hortagay warkaasi ma aha haye war dawlad baa ninka iyo sharci baa haya walaagteedii baa lagu haystaa ilaahay cilmigiisa fara badana maxaa lagu xidhay waa caqabadaha jacaylka ka mid ah waxan imtixaanka waa imtixaanaya oo imtixaanku nafsi yahay example kuna sidato